nin ay daris ahaayeen ayaa xaaskiisa si qarsoodi ah uga dhalay ilaa 7 caruur ah. waa qiso xanuun badan oo ka dhacday mid ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho. qisadan halkan ayaan idinkugu soo koobi doonaa, waxayna ku bilaaban doontaa sida tan. aabe isu haystay inuu dhalay ilaa 7 caruur ah kuna xamaalanayay mootobajaaj ayaa habeenada ka mid ah wuxuu jidka qarkiisa ka soo qaaday haweeney foolanaysa isagoo geeyay mid ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho. haweeneyda ayaa durbadiiba soo tuurtay wiil, waxayna ku dhashay afaafka hore isbitaalka, waxayna sheegtay inuu wiilka ka dhalay yarka bajaajlaha ee keenay albaabka ku sugayay. dhaqaatiirta isbitaalka ayaa u yeeray yarka bajaajlaha waxayna u sheegeen in loo dhalay wiil isla markaana laga doonayo khidmadii isbitaalka ee haweeneyda lagu fooliyay. wuxuu sheegay inuu kaliya asxaan u soo qaaday isla markaana uusan asaga canuga ka dhalin. wuxuu damcay inuu baxo, waxaase arrintaas ka diiday ilaalada isbitaalka oo u sheegay inuu canugiisa qaato isla markaana uu lacagta iska bixiyo. waxaa la yaab iyo fajac la kulmay yarkii bajaajlaha oo asxaanka inantan u sameeyay. durbadiiba waxaa baaritaan ku dhaqaaqay dhaqaatiirta isbitaalka, waxayna baareen aabbaha lagu nabay wiilka. sidoo kale wiilka ayaa isna la baaray, waxaana aabbahan la ogaaday inuusan marnaba waxba dhali karin uu ma dhalo yahay kadib markii la ogaaday inuu wax ugxaana lahayn. waa la yaab iyo amankaag kale. yarkii bajaajlaha ayaa loo sheegay inuu iska baxo isla markaana uu fasax yahay maadaama uusan waxba dhali karin oo uusan wax ugxaana lahayn. wuxuu ku dhahay cunina, aniga 7 caruur ah ayaa gurigayga joogta oon saaka usoo shaqo tegay. waan dhalayaa, waxaana ii joogta 7 caruur ah, waxaadna sheegaysaan been. sidaas ayuuna uga tegay. waxayna u sheegeen inuu warqadan qaato isla markaana uu tago isbitaal kasta oo uu doonayo inuu isku xaqiijiyo. warqadii ayuu ka soo qaatay, wuxuu tegay isbitaal Digfeer, wuxuuna u sheegay arrinta dhacday. baaritaan kale ayay ku sameeyeen, waxayna ku ogaadeen inuusan wax ugxaana lahayn iyagoo u sheegay inuusan waxba dhali karin. waa mar kale la yaab. wuxuu u tegay yar ay ilma adeer yihiin, arrinta ayuuna u sheegay, waxayna mar kale aadeen isbitaalka aadan cadde ee magaalada Muqdisho. baaritaan kale ayay sameeyeen, waxaana loo sheegay inuusan wax ugxaana lahayn yarkan isla markaana uusan waxba dhali karin. waa la yaab iyo amankaa kale. wuxuu tegay mid ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho oo ah kii afraad, kaas uu isku xaqiijiyay. wuxuuna intaas ka bacdi go'aansaday inuu haweeneyda qudha ka jaro oo nafta dhaafiyo. wuxuu tegay meel tooreyada lagu iibiyo, wuxuuna soo iibsaday toorey. wuxuu maalin cad guriga ugu yimid haweeneyda u dhaxaysay isla markaana caruurtan sheegadka ah u dhashay. wuxuu kelida ka geliyay tooreydii isagoo u sheegay inuu dili doono haddaysan u sheegin waxa caruurtan ka dhalay ama ninka ka dhalay. haweeneyda ayuu 2 mar kelida ka geliyay, hal marna luqunta ayuu ka geliyay iyadoo saddex dhaawac qabta ayay sheegtay ninka ka dhalay, walow ay markii hore inkirtay. waxay u sheegtay nin deris la ah oo nusbooska ku degan inuu caruurta ka dhalay isla markaana uu maalin walba u imaan jiray markuu isagu baxo. subxaan allah. caruurta yarka ugu weyn wiil ayaa ugu weyn waana 14 jir. ilaa 14 jirkaas uu 14 sano ka gaarayay. ilaa kan ugu yar waxaa caruurtaas dhalayay ninka deriskiisa ah, ninkaana waxba muusan ku yeelan ilmahan. waa arrin mucjiso leh. wuxuu durbadii aaday masjidka ugu dhow oo uu salaada ku dukan jiray, wuxuuna arrintan la socodsiiyey culimmada isagoo sheegay inuu dili doono ninkan isla markaana ay sidaas ogaadaan. waxaa waaniyey culimmada masaajidka oo u sheegay inuu arrintan si kale u xaliyo si uusan qalad ugu yeelan dembigan. waxaa arrintan maqlay rag ka tirsan xarakada al-shabaab oo ka agdhowaa goobta uu falkan ka dhacay. ninka caruurta dhalay oo deriskiisa ahaa ayaa kusoo dukaday masjidka, halka ninkan kale uu tuuraydiisa soo qaatay isagoo go'aansaday inuu nafta dhaafiyo. raggii ka tirsanaa al-shabaab ayaa ninkii ilmaha lagu sheegay inuu dhalay qabtay, waxayna sidoo kale qabteen ninkii naagta xalaasha ku qabay. waxayna u sheegeen inuu ismarnaba dilin isla markaana ay arrintan ayagu geli doonaan. waxaa lagu wargeliyey inuu gabadha usoo labiso isla markaana soo asturo, sidaas darteedna uu iyagu kusoo wareejiyo. sida ayuu sameeyey, gabadha ayuu soo waday, wuxuuna ku wareejiyey raggii ka tirsanaa al-shabaab. labadoodii waxaa la isugu geeyay meel lagu magacaabo beerta calimaada oo al-shabaab u ah maxkamad. waxayna hadda sugayaan in dhagax lagu dilo, walow arrimo karoona la xiriira dartiis dib loogu dhigay. subxaan allah. arrintan mucjisadeeda ayaa aada looga hadlayaa magaalada Muqdisho. waxaan hadda caruurtiisa korsanaya aabbihii bajaajlaha ahaa
isla markaana naagtiisa laga dhalay 7 caruurta isagoo sheegay inuusan ku qanacsanayn balse ay maharkiisa ku dhasheen isla markaana uu iska korsan doono. subxaanallah. fadlan subscribe saar YouTube channelkeena siina share gareey. mahadsanidin.